furaysaa dacwadda markaa furno adduunka sharciga waddankan ka jiro muqdisho ku noolnahay dowladda ka jirto sharcigaasaa lagu kala baxaa maxkamadda markaa tagno oo haddii annaga cadaymihii annaga marka la jabsaday fiiri waxaa la yidhi warafkii waydha maxaa kulmiyey warafka iyo waydha shaqaale baxaaya shaksi kaa tagay iyo shaksi midda kale labo amnigaadi ilaasho waxa la yidhaha ku sheegaya amnigaadi iyo noloshaadi adiga ilaasho horta waxa allah dad dilo ilaaha dad dilo arwa dadka inay aad iyo maqlaan kullu nafsin daa'iqatul maut marka wax badan inaan sheeg ma rabo markii shaqada uu ka tagayay nidaamiyay horta afdoon iska baxay problem ma laha laakiin nidaamiyay ku shaqada ku tagayay guriga ayuu imaaday guriga markuu imaaday isaga oo askari wata ayuu noo imaaday guriga markuu imaaday dharkayga inaan qaataa rabaa uu yidhi war dharka haddaa qaadanaysa askariga kula socdo muxuu yahay annaga magaalada askar xafiis aan lii ka siinin maraysa hadda joom ugu sareeyo taliyaha gobolka ma ay ka saaxsan tooba dil dhow ay yaqaana macna hadda maanta xafiiskiisa aan tago dhawneeyo dhibkaasaan ii geysta aan dhaho bis inaan liga celinayn waa huba macna meesha ugu yar waa madaxweyne farmaajo xafiiskiisa haddaan tago inaan lii celinayn waa ogaa macna magaciygii wejigay waa la yaqaana ma fahantaade macna wax walba ani samayn karaa meel kastaan u dacwo karaa ilmihii oo buusan oo miskiin ah oo haddii wixiisi la dhaco shirkaddu waa waxa la dhacay wax hal qof uu leeyahay maaha waa wax koox ay leeyihiin bulfaan qad ku jiro aniga iyo tiim kale marka wax ma ahan oo maxaa la dhahaa uu qof uu leeyahay oo la bedeshanayo baasweerkiis ma aha cid kastoo imaqlayso hadalka waa la dareemaa saaxiibkay wuxuu leeyahay mar aan orbiga maanta aan tagnay oo saldhigga tagnay wuxuu leeyahay adaa hawada ka saaray janaalkaagii waxaa rabtaa in bixitaankii aa ku burburis brother qorayf ismaaciila ka tagay shirkadda uma istaagin balbalaara ka tagtay shirkadda uma istaagin hal abuurkaygii hal abuurka bulfaana shaqaynaya marka micnaheed haddii uu isaga ka tagay nidaamiye uu durdurmeedii ka tagay micnaha miya xasan haddii aniga baxaayaba durduriyaysan guulaysan miya hawadaan ka saara miya adeer taas ma suurtooweyso xitaa haddii janaalkaas uu hawada ka baxo haddii sharciga wuxuu nagu soo qaado oo la dhaho waa wixii saas hadii la dhaho waa dacwooyina dacwadii aad way socotaa meel fiican ay maraysaa xaq hal erayaan wataa maxkamadii dhan muhiim ah maxkamadda day rabta hala dhaarto haddii la dhaarto waa lagu soo kala baxo laakiin hal erayaan dhaha xaq haddaa qof bani aadan aa ka geshid calaacal ma aha hanjabaad ma aha barye ma aha waxa ani ku hadlaayo bulfam wuxuu ku hadlaayo labadeena hadal micnaha calaacal ma aha baryena ma aha ina ooyneynina ma aha maadaama youtube hawada laga saaray hal abuurkii waxaan leenahay durdur media 86 milyan 2 years wax ka yar aan leenahay 87 milyan aan ku gaarnay hal abuurkaasaan leenahay sharaftaasaan leenahay wax badan inaan hordhacma rabi dadka annaga na daawado dadka annaga nagu xiran waxaan leenahay xitaa haddii janaalkaas sidaan uu hawada uga baxo oo uu baaswarka dii waayo oo uu na sii waayo isagay u taalaa anaga laakiin wax tallaabo isaga dhinaciisi aa u qaadayna ma laha laakiin xaqa walaalihiisa day maqlaayaan hadday waalidiintiisa maqlaayaan hadday eheladiisa maqlaayaan ninka nidaami la dhaho magaca ku sameey inaa aniga youtube durdurmeedii hawada ka saartid magaca ku sameey sumcad ku yaala saas lagugu barto laakiin aniga runtaan ku sheegaa walaalahay waalidiinta wax kasta dhaan wax tallaabo aan qaadi doono ma laha oo aan ahayn in aan ilaahay inuu ka weyn yahay qof walba inaan ilaahay ku dayn cuqubo way soo baxay qofka cuqubo galo warkii waxaa dhihi doontiin warxasato maalintii wuxuu sheegayay waxaa ka jira cuqubada way soo baxay marka durdur media hadii injineera ku howlan micneed ma in durdur media laga samray maaha injineero khubaro ah oo muddo sanooyin ku jiray oo dhowr sano ku jiray ayaa hadda